السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الدمان الصحابة ميلو البوجوكتين هدي أدخل عصبتا جانالك سبسكريب سارسينا شير قري هدي أدهور نولي جوكتنا نولاي قري كومنتيغا قروح دبضان نخوص نوغو سوقر maanta waxaan idin wadaa sheeko cajiiba sheekadaas oo haddaad dhegaysato aad uga fikri doonto balse waxaan ka codsanayaa adoon dhameysan fiidiyowgan inaadan iska dhaafin waxaad ogtihiin maalmahan inay jirto sheeko social media dhex wareegaysa sheekadaas oo ku saabsan Hana Abuukar waxay afkeeda ka qiratay inay ayada ilmaha soo xado dhar jeexjeexana ay qaadato sidoo kalena ay dhagool iska dhigto suuqa Madiina laga yaqaano oo loo yaqaano gabadhii Sacuudiga laga soo tarxiilay ayadoo ku gambanaysa dhagoolnimada amba ku gambanayso inay dhar jeexjeexan qaadato balse sheekadu sidaas waa ka dugan tahay oo maanta waxaad ogtihiin in la soo qabtay laba nin oo ayagana kamid ah shabakada Hana Abuukar waxaa la soo qabtay laba nin oo laga soo qabtay Afgooye ayagoo laba cunug wataan labadaas nin nasiib wanaag waxaa ku saan joogay hay'adaha amniga balse way ku guuleysteen oo hay'adaha amniga ayaa waxay soo qabteen labadii nin waxayna geeyeen goobihii loo cayimay oo loogu talagalay dadka dambiilaha noocaas ah balse nimankaas waxay afkooda ka qirteen inay ayaga ka mid yihiin shabakada Hana Abuukar oo ayada ay u adeegaan ayada sidoo kalena ay lacag siiso lacagtaas reerka u soo dirana ayaga aysan garanin balse waa arrin cajiiba hadii ay afkooda ka soo qirteen shalana ay iyada afkooda ka qiratay oo iyada ay tiri ilmaha waan xadaa oo waxaan u qaataa dhar jeexjeexan oo sidoo kale dhagoolan iska dhigaa si aan ugu kambado waxaana fiirsadaa ilmuhus meeshay ka dagan yihiin waxaad ka tusaaleysan kartaa waxyaabaha afkeeda ay ka leedahay adigana wax badan aad ka baran kartaa maanta waxaan ognahay wadankeena in dhibaato badan jirto dhibaatadaasna aan anaga ka soo kabsana hadeerta balse waxaa jirto arrin shakhsiyadaada wuxuu dhimayso amba arrin adiga ku dhibayso because hadii adiga lagu nabaad guuriyo amba awlaadaadii loo soo dhigtay waxa waaye arrin adiga wax ku dhimayso balse saa arrintaas oo dhan uga digtoonaata waxaan maanta ku sheegayaa arrimaha aad uga digtoonaa karto waa la dagaali kartaa nimankaas waadna iska ilaali kartaa dagaalaadna la geli kartaa dagaalku maahan in qoran la qaato dagaalku maahan in dad la dilo laakiin waxaa jiro waxyaabo ayaga ay afkooda ka shaaciyeen waxay tiri Hano iyadoo hadlayso waxaan fiirsanaa meeshii ilmuhu ka dagan yihiin waxay tiri waan baxnaa oo waxaan qaadanaa dhar jeexjeexan inta anaga nala shaqeyso iyo waxyaabihii anaga shuqul nagu lahay waxaanan aadnaa banaanka sidaas oo kalena waxaan fiirsanaa ilmo dagan oo guriga banaankiisa ku dheedheelayo amba dagan oo qof bini aadmi la joogin amba guri iska dulf degan sida buusho kaleetood oo dan iska haysato balse waxa soo dhan waxbaan ka baran karnaa haduu Ilaahay yiraahdo adigana waxay ku noqon kartaa cashir aad wax badan ku ogaa karto ciyaalkaagana aad ku ilaashan karto Ilaahay ku ilaaliya waxaan filayaa inaad ka digtoonaa doonto warkaana oo wax badan ku taraayo haduu Ilaahay yiraahdo balse waxaa jirta anaga caado iyo dhaqan aan leenahay caadadaas iyo dhaqankaas waxay tahay cunugu markuu 6 sano gaaro waxa la sameeyaa in dugsiga loo diro waxaa la sameeyaa in iskuulka loo diro balse hadda maanta abnigu sidii ma ahan oo waxaa jiro qof adiga ku raadsanayo adigana aad warka qabin qof adiga dantiisii kugu jirto iyo meesha wax ka heli lahayd awlaadaada ay tahay oo adigana aad warka qabin si aad uga digtoonaato ilmahaaga ka warhay mar walbana ayaga ka shaqay oo ayaga sidaad u nabadgeli lahayd ku taxadir waxaa jira dhibaatooyin badan waxaa jira waxyaabo badan oo adiga aadan wax ka ogeyn laakiin Ilaahay ayaan wax dhibin ka hadashiyay waxaa jira waxyaabo badan oo adiga dhib ku ah waxaa jira waxyaabo badan because maalin walba waxaad maqashaa cunuga la qaatay wuu maqan yahay waxaad maqashaa maalin walba cunuga la qaatay kilida laga baxay waxaad maqashaa maalin walba cunuga ba dhumay mana la arkin balse waxa soo dhan Ilaahay hanaga haya waxa jiro dad badan oo waxaas ka shaqeysto siday ayaga afkooda ka qirteen annagana waa inay cimri qaadasho noo noqoto iyo inaan ilmaheena ka warayno ku dhigno waa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh